Cable TV. dugsiga Orbit College oo ah dugsi lagu barto culumta kombiyuutarka ayaa waxa maanta ka qalin jabiyay dafcadii toddobaad oo ka kooban 151 arday. Munaasabadii qalin jabinta oo ka dhacday Hotel Cafe waxa ka soo qayb galay madax iyo marti sharaf kala duwan. Intii ay xafladaasi qalin jabinta ay socotayna waxa la sheegay in inta badan ardayda ka baxda Orbit College ay ka shaqo galaan shirkadaha kala duwan ee ka howlgala magaalada Burco, taasi oo lagu sababeeyay tayada waxbarashada dugsigaasi Orbit College oo aad u sareysa. Maamulaha dugsigaasi Orbit College Cabdirashiid Maxamed Muuse iyo maamulka ku-xigeenka dugsigaasi Maxamed Nageeye ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadii qalin jabinta ahayd. iskuulka waxaanu furnay 2012 micnaha maanta iskuulka waxa uu dhamaaday 7 sano ayaa u soo dhamaaday qalin jabinta la qabanayaana waa tii toddobaad taasi micnaheedu waxa weeye inta uu furnaa iyo nidaamku u socday sanadlaha ahaa inay si fiican iskugu fadhiyaan wax gaabina markaa uuna jirin iskuulka waxyaabaha horta oo bixiya oo kaliya waa cilmiga kombiyuutarka iskuulku imika waxa uu cilmiga kombiyuutarku bixiyo 3 heer oo kala duwan buu kala bixiyaa qayb waa qayb qofku markuu ama ardaygu kombiyuutarka uu bilaabayo uu ka soo galo oo ardayga loo diyaariyo inuu kombiyuutarka isticmaali karo wax ku qori karo qaybta ardaygu markuu dhameeyo waxa ugu xigta qayb uu tacab badan iskuulkuna geliyo ardaygana kaga baxda waalidkana kaga baxda oo ah qaybta aynu maanta u fadhino ee ay ka qalin jabinayaan 146 arday ayaa qaybta ka qalin jabinaya heerka labaad waana qayb ay aad iyo aad u tixgeliyaan ardayga ka soo baxa Orbit jaamacadaha iyo kambaniyadu ay aad u tixgeliyaan qofka diblomkan haysta iskuulka Orbit iskuulku sanadkii dhaweyto waxa uu sii kordhiyay qaybta qayb ka sii sareysa guud ahaan marka ardaydu waa 150 dhamaystay diblom oo ay 5 arday oo kamid yihiin advanced diploma ICT marka ay qaateen waxa uu kala soo kordhiyay qayb loo yaqaan internship oo ah inuu iskuulku ardayda geeyo kambaniyo dabeetana kambaniyada ay la shaqeeyaan dabeetana hadhow marka uu ka baxo muddo uu noqdo qof ka shaqeeya kambaniga waxaan leeyahay kuwa maanta halkan soo ee maanta shahaadadoodii qaadanaya ee maanta diblomadii koobaad qaadanaya waxaan leeyahay waa farxad gaara hambaliyo tiraba 3 arday oo ardayda kamida maanta halkan fadhida oo maamulaha iyo shirkaduhu isla qaateen inay bisha September hawl galaan ardayda waxbarashadooda sii wadata ee maanta halkay joogaan hore uga sii wada iskuulku wuxuu u ballan qaadayaa 3 shay arday wuxuu u ballan qaadayaa iyagoo wax dhiganaya waxay dhigteen inay shirkadaha laab kaga helaan gruubka ka sareeya iskuulku wuxuu u ballan qaadayaa isagoo ardayo wax baranaya in la geeyo meherad internship bil iyo 2 markuu joogo inuu ama si fuul ula shaqeeyo ama si temporary ula shaqeeyo geestoodana waxa munaasabadan ka hadlay mas'uuliyiin waalidiin iyo qaar kamid ah ardayda dugsigaasi Orbit College waxaan leeyahay cilmiga aad barateen ka faa'iideeya ummadana uga faa'iideeya markasta waxaan ka marxaati kacaynaa in Orbit International College aan ka qaadanay aqoon buuxda anaguna darnay wasaaradda waxbarashada dhiirigelin ballaaran ayaan runtii la garab joognaa waqti wax kasta oo nooga baahdo waxaan ballan qaadnay inaan la garab taagnaano gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyinkii lagu guddoonsiiyay ardaydii iyadoo sidoo kale shahaado sharaf iyo la guddoonsiiyey macallimiintii ardaydaasi wax soo bartay waa Bashiir Xaaji Ibraahim Qayir wararka Home Cable TV Burco adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida